mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Barcelona ayaa la filayaa inuu raaci doono agaasimaha kooxda Barcelona ee Matteo Salvini kaasoo loo filayo inuu ka tagi doono kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan. dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa la filayay inay la soo wareegi doonto ciyaartoyga khadka daafaca uga ciyaara kooxda Napoli ee Kim, halka ay weli sii socdaan wadahadaladii ay wadeen kooxda Brighton iyo sidoo kale kooxaha Liverpool iyo Arsenal, kuwaasoo la filayo kooxda Brighton inay ku fasaxi doonto ciyaartoyda McAllister iyo sidoo kale Caicedo. kooxda Arsenal ayaa ka cabsi qabtay in laga horqaado ciyaartoyga Declan Rice oo kooxda isku dayday inay la soo wareegto. sidoo kale kooxda Barcelona ayaa isku dayi doonta inay sameyso saxiixyo taasoo ay kooxda kusoo xoojinayso khadka dhexe maadaama la filayay in kabtanka kooxda Sergio Busquets uu ka tagi doono kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan. waad salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena 1x1 oo nagu soo qaadana wararka iyo warbiximihii ugu dambeeyey. waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyey kooxaha. haddii aad gaashid muuqaalka fadlan like saar, subscribe na dhex channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe. sidoo kale haddii aad jeceshahay inaad soo booqatid baraha kale aanu ku leenahay baraha bulshada, waxaad dhammaan linkeedooda ka heli doontaa khaanada description-ka. ugu horeynta haddaynu ku bilowno kadib marka ay sheegeen saxaafadda Catalonia in agaasimaha kooxda Barcelona ee Matteo Salvini uu ka tagi doono kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan, sidoo kale uu ku biiri doono kooxda Aston Villa ayaa waxaa la sheegay hadda in agaasimuhu hore usii kaxaysan doono ama uu kooxda u iibin doono kooxda Aston Villa ciyaartoyga Ferran Torres. waxaana hadda bilaabmay ciyaartoyga Ferran Torres sida ay kooxda Barcelona u iibin lahayd, maadaama ciyaartoygan kadib markii kooxda ay kala soo wareegtay Manchester City uu ku fashilmay inuu ka mid noqdo ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda. sidoo kale kooxda ayaa doonaysa inay dhammaystirto ciyaartoygan ka hor 30 bisha Juun ama dhamaadka xilli ciyaareedkan. ciyaartoygan ayaa la filayaa inuu ku biiri doono kooxda Aston Villa maadaama Matteo Salvini uu ka mid yahay ama uu fududeyn doono sida ay ula wareegi lahayd kooxda Aston Villa ciyaartoyga Ferran Torres ayay kooxda Manchester City kaga soo wareegtay kooxda Barcelona qiimo gaaraya 50 milyan oo euro. haddaba iyadoo ay taasi jirto waxaa la filayaa kooxda Barcelona in ciyaartoyga Ferran Torres ay ku fasaxi doonto qiimo gaaraya 42 milyan oo euro oo kooxda aanay ciyaartoygan ku iibin doonin qiimo ka hooseeya 42 milyan oo euro. sidoo kale Matteo Salvini oo ahaa agaasimaha kooxda Barcelona maadaama uu ahaa ciyaartoygan ciddii soo iibisay sidoo kale ka mas-uulka ahayd kooxda Barcelona markii uu kusoo biiriyay ciyaartoyga Ferran Torres, kuna qanciyay mas-uuliyiinta kooxda Barcelona inay la soo wareegaan ciyaartoyga Ferran Torres. ciyaartoygan ayaa waxaa isha ku haysay kooxda Aston Villa sidoo kale kadib markii uu agaasimaha kooxda Barcelona ee Matteo Salvini uu ku biiray ama la filayo xilli ciyaareedka soo socda inuu ku biiro kooxda Aston Villa ee ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa la filayaa ciyaartoyga Ferran Torres sidoo kale inuu ku celin doono horyaalka Ingiriiska ee Premier League isagoo marka hore ciyaartoygan ka ciyaari jiray horyaalka Ingiriiska una ciyaari jiray kooxda Manchester City. sidoo kale tababaraha cusub ee kooxda Aston Villa Unai Emery iyo agaasimaha kooxda ee la filayo inuu noqon doono Matteo Salvini ayaa la filayaa kooxda iyo sidoo kale mas-uuliyiintu inay sameyn doonaan mashruuc cusub taasoo macnaheedu yahay kooxda inay la wareegi doonto ciyaartoygan Ferran Torres kana la wareegi doonto khadka weerarka kooxda Barcelona maadaama ciyaartoygan aanu ku qanacsanin tababara Xavi. sidoo kale ciyaartoygan uu awoodi waayay inuu boos ka helo kooxda Barcelona inkastoo kooxda Barcelona ay aad ugu liidatay xilli ciyaareedkan khadka weerarka gaar ahaan booska garabka bidix. dhinaca kale haddaynu eegno kooxda Manchester United ayaa la sheegay inay heshiis aad u sarreeya usoo bandhigtay ciyaartoyga khadka daafaca uga ciyaara kooxda Napoli iyo xulka qaranka Kuuriya ee Kim. ciyaartoyga Kim oo jiray 26 sano ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican qaaradda Yurub khadka daafaca xilli ciyaareedkan. sidoo kale ciyaartoygan waxa uu awooday xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay in kooxda Napoli uu kula guuleysto horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A tan iyo sanadii 1990. haddaba arrinkaas waxa uu soo jiitay kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub gaar ahaan kooxda Manchester City ayaa la sheegay kooxda Manchester City in toddobaadkan ay kooxdu usoo bandhigtay ama wadahadal ay kula jirta ciyaartoyga. sidoo kale kooxda ay ku qanacsan yihiin ciyaartoygan inay gaadhaysa qiimaha heshiistaminta ciyaartoygu 43 ilaa 52 milyan oo euro. haddaba sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinada waddanka Talyaanigu, kooxda Manchester City ayaa doonaysa ciyaartoygan inay usoo bandhigto mushahar aad u weyn. ciyaartoygan ayaa waxaa la sheegay inuu doonayo inuu ka ciyaaro horyaalka Ingiriiska ee Premier League inkastoo ciyaartoygan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ama xagaagii lasoo dhaafay uu kooxda Fenerbahce ee ka ciyaarta waddanka Turkiga ay kooxda Napoli kaga soo iibsatay qiimo gaaraya 16 milyan oo euro taasoo kooxda Napoli ay ula soo wareegtay ciyaartoygan sidii uu noqon lahaa ama uu buuxin lahaa booska uu ka baxay ciyaartoygii hore ee khadka daafaca uga ciyaari jiray kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly kaasoo ku biiray kooxda Chelsea. haddaba ciyaartoyga Kim ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu awooday kooxda Napoli inuu ciyaaro 43 kulan dhammaan kulamadii ay ciyaartoy kooxda hadday noqoto horyaalka Talyaaniga, koobka Talyaaniga iyo sidoo kale koobka Champions League. waxaana ciyaartoygan uu ku caawiyay kooxda Napoli in xilli ciyaareedkan horyaalka Talyaaniga ay samayso 17 clean sheet ama 17 jeer ay shabaqooda ilaashato. sidoo kale ciyaartoygu waxa uu kooxda Napoli xilli ciyaareedkan u dhaliyay 2 gool isagoo intaa leegna caawiyay.
haddaba tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa la filayaa inuu soo xoojin doono khadka daafaca kooxda kadib markuu dhaawac soo gaaray xilli ciyaareedka inta ugu dambeysay ciyaartoyda ugu muhiimsanaa kuwaas oo kale ahaa Lisandro Martinez oo dhawaan kusoo biiray kooxda iyo sidoo kale Rafael Varane. arrinkaas oo keenay ciyaartoyga Luke Shaw oo markiis hore ka ciyaara booska dambeedka bidix ee kooxda Manchester United in ciyaartoyga inuu ka ciyaaro khadka dhexe ee khadka daafaca kooxda Manchester United inkastoo ciyaartoyga Harry Maguire aan ugu kalsoonayn tababare Ten Hag. haddaba kooxda Manchester United ayaa la filayaa ciyaartoygan inuu soo bandhigtay sidoo kalena ay aaminsan yihiin mas'uuliyiinta kooxda Manchester United in ciyaartoyga Kim ay kula soo wareegi karayaan qiimo gaadhaya 243 ilaa 250 milyan oo euro. dhinaca kale kadib markii toddobaadyadii ugu dambeeyay ay soo baxeen in kooxda Liverpool ay wada hadal rasmi ah la sii gaadhay ama heshiis rasmi ah la sii gaadhay ciyaartoyga McAllister ayaa hadda waxaa soo cusboonaanaya wararka sheegaya in kooxda Chelsea ay kusoo biiri doonto tartanka loogu jiro ciyaartoyga McAllister sidoo kale kooxda ay ku dhowdahay in ciyaartoygan ay kala wareegto kooxda Liverpool. ciyaartoyga McAllister oo ku guuleystay koobka adduunka waddanka Argentina kula guuleystay ayaa la filayaa ciyaartoygan xilli ciyaareedkan inuu ka tagi doono kooxda Brighton sidoo kale ciyaartoygan ayaa la filayaa inuu bisha June dooran doono kooxda uu ku biiri doono. haddaba ciyaartoygan ayaa la sheegay in kooxda Brighton ay ku fasaxi doonto qiimo gaadhaya 70 milyan oo euro ugu yaraan maadaama ay jirto kooxda Liverpool kooxda u tartamaysa. sidoo kale la sheegay kooxaha Manchester United iyo Chelsea ay kusoo biireen tartanka loogu jiro ciyaartoygan iyadoo ay jireen kooxda Liverpool in ciyaartoygan ay heshiis rasmi ah la soo gaadheen. haddana waxaa jirta in hadda ay kusoo biirtay kooxda Chelsea oo doonaysa inay soo xoojiso khadkeeda dhexe ee kooxda maadaama kooxda Chelsea la filayo ciyaartoyga Matthew Kovacic inuu ka tagi doono kooxda xagaagan ama dhamaadka xilli ciyaareedkan iyadoo ay ciyaartoygan doonayaan kooxaha Manchester United, Manchester City iyo sidoo kale Bayern. kooxda Liverpool oo sidoo kale doonaysa inay soo xoojiso khadkeeda dhexe oo la filayo inay ka tagi doonaan ciyaartoy ay ka mid yihiin ciyaartoyga Keita, Chamberlain iyo sidoo kale ciyaartoy kale oo ciyaarta uu ka mid yahay ciyaartoyga James Milner ayay kooxda isku day doontaa inay la soo wareegto ciyaartoyga McAllister. haddaba ciyaartoyga McAllister ayaa la filayaa inay ku biiri doonto ama kooxda Chelsea ay isku day doonto ciyaartoygan inay la soo wareegto inkastoo marka hore ciyaartoygan kooxda Liverpool ay ahayd kooxda kaliya ee doonaysa ciyaartoygan inay la soo wareegto balse waqti xaadirkan waxa uu tartanku u dhaxayn doonaa kooxaha Liverpool, Chelsea, Manchester United. isla kooxda Brighton oo la filaya inay iibin doonto mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan khadka dhexe ee kooxda xilli ciyaareedkan kaasoo ah ciyaartoyga Caicedo ayaa la filayaa ciyaartoygan inay la wareegi doonto kooxda Arsenal kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in kooxda Brighton ay si rasmi ah ula soo wareegi doonto ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Dawood. ciyaartoygan ayay kooxda Arsenal isku day doontaa inay la soo wareegto kadib markii kooxda Arsenal ay ku fashilantay bishii January ciyaartoygan inay la soo wareegto. haddaba kooxda Brighton ayaa la sheegay inay hadda ka shaqeynayso sida ula soo wareegi lahayd ciyaartoyga Dawood ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda Dortmund kaasoo dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Dortmund xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado. arrinkaas oo keenaya kooxda Arsenal in ciyaartoygan ay u dhaqaaqdo inkastoo kooxda Brighton ay doonayso ciyaartoyga Caicedo inay ku fasaxdo qiimo ka yar 60 milyan oo euro iyadoo ciyaartoyga laftiisu uu doonayo inuu ka ciyaaro koobka Champions League sidoo kale uu ku biro kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. haddaba kooxda Brighton ayaa la filayaa inay samayn doonto saxiixii saddexaad ka hor intaanu furmin suuqa kala iibsiga. arrinkaasoo sheegaya kooxda Brighton in ciyaartoyga Dawood ay la soo wareegi doonto taasoo macnaheedu yahay in ciyaartoyga Dawood kadib marka uu kusoo biro kooxda Brighton ay ciyaartoyga Caicedo fasaxi doonto taasoo ku wareegi doono ciyaartoygani kooxda Arsenal oo isku dayday ciyaartoygan inay la soo wareegto bishii January balse kadib markii kooxda Brighton ay ciyaartoygan qiimihiisa aad u sarreysay oo ay gaarsiisay 60 milyan oo euro ayay kooxda Arsenal ku fashilantay inay la soo wareegto waxaana la filayaa kooxda inay mar kale u soo laaban doonto ciyaartoygan oo ay la soo wareegi karto inkastoo kooxda Arsenal sidoo kale ay wada hadal kula jirto ama la filayo kooxda Arsenal sidoo kale inay isha ku hayso ciyaartoyga Declan Rice oo kooxda ay ka qabsi qabto sida ay ku sameysay kooxda Chelsea markii ay kooxda Arsenal wada hadalka kula jirtay ciyaartoyga Michael Mudryk oo xilliga u ciyaari jiray kooxda Shakhtar Donetsk. kooxda Arsenal oo isku day doonta xilli ciyaareedka dambe inay soo xoojiso khadka weerarka iyo sidoo kale khadka dhexe ama si guud safafka kooxda Arsenal maadaama kooxda la filayo inay ka qayb qaadan doonto koobka Champions League ay kooxda Arsenal waxay ka cabsi qabtaa in ciyaartoyga Declan Rice ay kala wareegto kooxda Chelsea. sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinada waddanka Ingiriisku kooxda Arsenal ayaa diyaar u lahaa ciyaartoyga inay ka bixiso qiimo gaaraya 80 milyan oo euro iyagoo kooxdu soo bandhigi doonto mushahar gaaraya 700,000 oo euro. haddaba kooxda Arsenal waxay ka cabsi qabtaa in kooxda Chelsea ay ciyaartoygan kala wareegto maadaama sidoo kale ay kooxaha Manchester United, Manchester City, Liverpool iyo Chelsea ay yihiin kooxaha doonaya ciyaartoygan inay la wareegaan. waxaana jiray in bishii January kooxda Arsenal ay isku dayday ciyaartoyga Michael Mudryk ee waqti xaadirkan u ciyaara kooxda Chelsea kaasoo xilliga u ciyaari jiray kooxda Shakhtar Donetsk inay kooxda la soo wareegto
balse kooxda Chelsea ayaa awooday ugu dambeyntii in ciyaartooygan ay kula soo wareegto qiimo gaaraya 80 milyan oo euro. inkastoo mid tababaraha kooxda Arsenal tababaraha kooxda West Ham ee David Moyes Declan Rice aanu kooxda West Ham kaga tagi doonin qiimaha hooseeya inkastoo ciyaartooygan uu dhammaan heshiiska kula jira kooxda West Ham xagaaga sanada 2024 haddaba kooxda Arsenal ayaa ka cabsi qabtay ciyaartooyga in laga qaado inkastoo kooxdu sidoo kale ay wada hadal kula jirto ciyaartooyga Caicedo haddana kooxdu waxay isku day doontaa inay soo xoojiso kooxda. ugu dambeyntii kooxda Barcelona oo doonaysa inay soo iibsato ciyaartooy ka ciyaari doona xilli ciyaareedka soo socda booska uu ka bixi doono kabtanka kooxda Barcelona ee Sergio Busquets ayaa la sheegay ciyaartooyga Ruben Neves ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda Wolverhampton inuu yahay ciyaartooyga ugu dhow ee kooxda Barcelona ay la soo wareegi doonto. inkastoo ay jiraan wararka qaar inay sheegayaan tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi inuu doonayo ama uu doorbidayo ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Sociedad ee Zubimendi ama sidoo kale ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Fiorentina ee Sofiane Amrabat haddana kooxda Barcelona maadaama dhaqaalaheedu aad u liito waxay kooxdu ku khasbanaan doontaa ciyaartooyga Ruben Neves ayaa la filayaa inuu dhammaan doono heshiiska uu kula jiro kooxda Wolverhampton dhammaadka xilli ciyaareedka sanada 2024 ciyaartooygan oo kusoo biiray kooxda Wolverhampton sanadii 2017 xilligaas oo ciyaartooygan uu kooxda kaga soo biiray kooxda Porto. Ruben Neves oo jira 26 sano ayaa waxaa sidoo kale jirtay in bishii January iyo xagaaga hore la xiriiriyay kooxaha Manchester United iyo sidoo kale Arsenal balse ciyaartooygan ayaa la filayaa in kooxda Barcelona isku dayi doonto inay la soo wareegto sidoo kale ciyaartooyga laftiisu oo ogolaan doono ku biiritaanka kooxda Barcelona iyo inuu noqdo ciyaartooygii bedeli lahaa kabtanka kooxda Barcelona ee Sergio Busquets kaasoo la filayo inuu ka tagi doono kooxda Barcelona dhammaadka xilli ciyaareedkan inkastoo marka hore uu doonayay tababara Xavi inuu ciyaartooygan ugu yaraan hal xilli ciyaareed kale uu sii joogo kooxda Barcelona.